Asalaamu calaykum. Kusoo dhawow casharkeena ugu horeeya ee HTML-ka. Marka hore intaanan sharxin HTML waxay tahay iyo guud ahaanba HTML-ka, waxaan sameysanaynaa dokumentigeena ugu horeeya ee HTML-ka. Haddii aad la soo degtay setup-ka, waxaan tegaynaa meeshaan ugu koreyso ee Explore ku qoran tahay. Ku dhufso faylkii aan soo furanay ayaan furanaynaa. Tan waxaan sameysanaynaa faylkeena ugu horeeya ee HTML-ka. faylkeena waxaa la baxaynaa index.html. marka magacan ugu horeeya ee indexka ah, magaca doontaa ka dhigan kartaa. hadda anaga index ka dhiganay, sababta index ugu dhiganay dib aan ka sharxi doonaa. marka muhiimadda waxay tahay dot wixii dhinacan ka soo xigo .html. .html-kan wuxuu caddeynayaa in faylkan uu yahay file HTML ah. tusaale, video marka aragtid, videoga properties haddaa fiirisid, videoga wuxuu leeyahay .mp4. haddaa sawir aragtid, sawirada waxay leeyihiin .png ama jpg. haddii aad qoraal aragtid, qoraalka extensionkiisa waxa waaye txt. marka extension wuxuu qeexayaa faylka wuxuu yahay. marka .html extensionkan wuxuu sheegayaa in faylkan uu yahay file HTML ah. dokumentigan waa kana oo HTML ku qoran lahayn waa inoo diyaarsan yahay. marka midda koowaad sheegayna waxay tahay HTML-ka waxay isticmaashaa wax la yiraahdo tags. marka tags maxaa la lahaa? tag horta marka hore sidaan u qoran yahay, magacayga kasoo qaad Axmed. tag sidaan horta lahaa waxa waaye meel ay wax ka furmaan, labadan ganood oo qoraal ku qoran yahay, email ka soo xirmaan. midkaan waxaa la lahaa open tag, midkaan closing tag. Axmedkan tusaale waaye, tag jira maahan. marka tag muxuu yahay, muxuuna u taagan yahay? tagsku waa keywords ama erayo luuqadda ama HTML-ka micno gooniya ugu fadhiyaan. tusaale, hadda haddaa rabtid inaad qof u wacdid, kaale leedahay, kaale macnaheeda waxaa waaye ii imow. waa macnaha hadda qof haddaa rabtid inaad ii imow dhahdid, jiifa ma dhehaysid, kaalayaa leedahay. macnaha kaaleedaas micnay u taagantahay. marka keywords maxaa leeyahay, luuqadan waxay leedahay keywords wax la yiraahdo erayo. maxaa leeyahay, erayada marka waxaa waaye tags alla. marka tag walbaba wuxuu u taagan yahay micno u taagan yahay. tag walbaba wuxuu u taagan yahay micno. marka tag kasta wuxuu leeyahay meeluu ka furmo iyo meeluu ka xirmo. tags qaar waxaa jira oo aan lahayn meelay ka xirmaan oo self closing la dhaho, waan gaari doonaa. marka luuqadan waxaa loo isticmaalaa waxay tahay tags. waxaan dhahnay tag walbana micno u taagan yahay iyo maxaa lahayd tole shaqo gooni ah uu qabtuu leeyahay. marka waa isla gaari doonaa tagska iyo shaqooyinka guud ay qabtaan. marka midda ugu horeysa qorayna waxay tahay leenka ugu horeeya ee documentigana laga rabaa wuxuu yahay in aan intaas sheegno. leenkan wuxuu browserka u sheegayaa inaan isticmaalayno HTML5. HTML-ku waxay soo martay versiono kala duwan sida XML, HTML4, HTML2 iyo 3 iyo versiono ka horreeyay. midkaan hadda isticmaalayno waa HTML5 oo midka ugu dambeeya ah. waxay soo baxday 2014 2014. marka leenkan ugu horeeya wuxuu caddeynayaa inaan isticmaalayno HTML4. marka HTML documentigeena ama tagskeena waxay ka bilaabi doonaan intaan. midka ugu horeeya qori doonaa wuxuu yahay HTML. HTML-kan tag waa kan intuu ka furmayaa, intuuna ka xirmayaa. gudihiisa ayayna geli doonaan tag kasta aan qoran doono. marka kan taggan iyo taggan waxay caddeynayaan in HTML tags aan isticmaalayno. marka HTML-ku wuxuu leeyahay laba qaybood. hadda horta marka hore aan browserka aan ku rangareysano si aan u aragno wax kasta aan sameynayno. websitekeenu waa kana, hadda waa cad yahay, waxba kuma qorno, waa nadiif waaye, bilow waaye. maynmaysaa dhahanaynaa saashada si aan iskuulaba bardhigano labada. marka haddii shaashada wax yar aan soo yara dhaweysano, marka laba qayb ay leedahay. labada tag ugu waaweyn HTML-ka iyo body.
sorry. Marka taggan headka ah iyo taggan bodyga ah muxuu qabtaa? Taggan headka ah badanaa wuxuu information ka bixiyaa website-keena ama documentigeena. Tusaale, hadda website-keena waxaa u baahanaa oo kale inuu lahaado title ama ciwaan. Ciwaanku waxaa la rabaa inuu kor ahaado oo qaybta u qorayso documentiga kasoo muuqdo. Marka boodiga kuma qorayna, headka ku qorayna. Maxaa yeelay boodigu waa caloosha browserka, halka headkuna uu yahay dabaqada sare ee browserka. Marka hadda title website save marka tiraahdo live server isticmaaleyna automatic uu bedelayaa. So title html-ku markuu headka iyo boodiga markaa u sameyso kadib ayaa live serverka lagu kiciyaa. So hadda waxaa dhaanaynaa open live server, dan markaasaa our website halkaas kasoo muuqatay. So marka taggan title-ka ah muxuu qabtaa? Taggan title-ka ah wuxuu qeexayaa website-keena title-kiisa ama ciwaankiisa. ma ahan magaca website-keena uu qaadan doono, meeshaan noqon doonta waa gaari doonaa midaas, laakiinse waxaa ka hadlanahay title-ka kore ee website-keena. Hadda taggan title ah wuxuu qeexayaa website-keena title-kiisa. Taggan headka ahne waa parentiga ama midka uu ku dhex jiro title-ka, wuxuu ku dhex jiro headka. Marka headkan waxaa dhahnay waa qaybta kore ee documentigeena, halka bodigana uu yahay caloosha weyn ama website-keena oo dhan meesha ku qoran lahayn boodiga waaye. Meesha mostly aan isticmaali doono boodiga waaye, oo aan maxaa la tagiskeena inteena ugu badan aan ku qoran lahayn boodiga waaye. Marka hadda maxaa sheegnay in line-kan koowaad uu qeexayo in HTML5 isticmaaleyno, documentigan HTML leh ay geli doonaan tagiskeena oo dhan oo faylkeena HTML-ka ah oo caddeyn u yahay, ama tagga ugu weyn HTML tagiska dhan ay geli doonaan uu midkan yahay. Marka gudaha usoo galno waxaa dhahnay headka waa qaybta kore ee documentiga, waxaana gelinay title-kana waxaa dhahnay taggan title-ka ah oo caddeynaa wixii inta lagu qoraa inay noqon doonaan website-keena ciwaankiisa ama title-kiisa. boodiga markaa u nimaano waxaa dhahnay waa caloosha website-keena. haddaa meeshaan boodiga wax ku qorno waxay doonaan noqdaan ama wax meaningful ku qoranaynaa. halkan waa caloosha website-keena. So save aan dhahnay control s, isla markii maxaa la talo isbedelku wuxuu kasoo muuqanaa browserka, maxaa yeelay waxaan isticmaalaynaa live server. So hadda waxaan ku qornay halkan waa caloosha website-keena, way kasoo muuqatay isla markii. Marka summary guud hadda waxaan jeclahay inaa xoogaa yar ka yara fahantay HTML-ka. Marka HTML-ka guud ahaan waxaa laga soo gaabiyey hypertext markup language. Marka basic structure HTML intaan waaye, wax yar practicay, isku dayna mid walba inay kaa degsan tahay ama kaa dhadhacsan tahay tag walba micnaha iyo sababta u taagan yahay. insha Allah cashirka xigo ayaan iskugu imaan doonaa. wabillahi tawfiiq.